بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا قريقان مبارك عبد إسماعيل واحد مانتا دوني هالكن افتيميشن عكو سميه أساسك جدد النبض قرن كتشمريد الصومالي لان شقة هذا بحد هذا واجبات كيف الشقة يوم حنقول هذا يعني وافق سنتها جدد اسمه جيش ريتان كيف وافق سنتها هي شرع الصومال لان وصار دستور وجهرين جديداً وحوي وجود هير قرنا سيدا كو حسن قدرك كواد أساسك جديدة نبضة ومدحونا تشمرد السومال كويلا تنك بشي تشمر اللي بدك نشيء لا تنك وكسو صاري حير مدحونا هنا حقوقيش الدستورية ما بريمتيف ريتس كمدحونا اللي وحكم ده إنه لسوا سارد إنه لسوا حايد إنه الشقة أوي مدعيد قارة madaxweynuhu markuu arkay baahida ugu weyn ee maanta qaranimada Soomaaliland haysata inay tahay khilaafaadka deegaanada Soomaaliland qaarkood ka jira iyo colaadaha soo noqnoqda iyo nabadda ayaa wuxuu u sameeyay guddi u gaar ah arrimaha ka shaqeynta nabadda oo ah guddi heer qaran ah dastuurkana markaa madaxweynaha arrinta awood u siinaya iyo sidoo kale qodobka 16aad faqradiisa saddexaad ee xeerka kala xadeynta xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda taasoo awoodii markaa dastuuriga ahayd madaxweynuhu oo u lahaa in madaxweynuhu sameyn karo gole ama guddi ama hay'ad ama wasaarad ama qofba uu shaqo gaar ah oo u delegeed gareyn karo ama uu u wakiilan karo inuu qof shaqo qabto ama institution shaqo qabto sidoo kale adduunyada badankeega waxa ka jira wax la yiraahdo gole nabadeed ama commission nabadeed baa ka jira tusaale ahaan qaramada midoobay bariga ugu weyn waa UN Peace Council-ka weeye dhaqaalaha ugu badan adduunka lagu bixiyo waxay soo saaraan warbixino caalami ah oo sanadlaha oo la yiraahdo Global Peace Index oo lagu taxo colaadaha maaragtay ka jira adduunyada oo aynaguna ka mid nahay dalalka jaarka oo kala weyn leeyihiin best practice-kan sida Ethiopia, Kenya, Rwanda ilaa Uganda iyo dalal badan oo kale oo maxaan ku leedahay region-keena iyo dalalka kale qaaradaha kale fogba sida markaa ku xusan qodobka koowaad ee asaaska iyo qodobka labaad ee awoodaha iyo waajibaadka guddidan horta guddidan ma aha guddi maxalli ah sidoo kale ma aha guddi shaqadeedu ku kooban tahay issue gaar ah sida issue-ga la saxaanood guddidan shaqadeedu waa national waa guddi heer qaran ah waxayna u xil saaran tahay guddida nabaddu inay ka shaqeyso nabadda iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale inay fududeeyaan wada hadallada nabadda iyo abuuridda fagaarayaal iyo jawi wada xaajood si loo xoojiyo nabadda iyo xasiloonida bulshada loogana hortago khilaafaadyada iyo colaadaha deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliland guddida markaa xukuumadda ay kala talinaysaa arrimaha nabadda haday tahay tusaale ahaan xeerar nabadda dhibaato ku ah haday tahay aragtiyo siyaasiyo nabadda dhibaato ku ah haday tahay arrimo juqraafi ama deegaan ama daaqsineed oo nabadda dhibaato ku ah waxay ka kaalmeynayaan madaxweynaha waxa jirta law enforcement authorities wax la yiraahdo hay'adaha sharci fulineed sida booliiska iyo wasaaradaha iyo dawladaha hoose iyo xafiisyada barsaabada shaqadaas wixii law enforcement ay shaqo fulina ama sharci fulina waxa iska leh hay'adaha law enforcement authorities ka waa iska leh ama hay'adaha sharciga fuliya hay'adan shaqadeedu waxay ku kooban tahay talasiinta dejinta qorshayaasha fududeynta arrimaha nabadda isku keenista dadka wada xaajoodka iyo wax kasta oo lagu heli karayo nabad oo dadka jiritaankooda iyo maxaan kula qarannimadooda nabad ku saleynaya waxaanay ka kaalmeynayaan hay'adan iyo toos u hoos tagta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ismiyatan oo sinta timaha ma hoos tagto wasaarad ma hoos tagto wakaalad ma hoos tagto hay'ad kale waa hay'ad madax bannaan buuxda oo siinaya xeerka asaaska madaxweynuhu sidoo kale waa guddi weyn waxay leeyihiin hay'adan guddida nabadda waxay leeyihiin xubnay leeyihiin oo ka tirsan guddida nabadda oo ah 7 xubnood oo madaxweynuhu magacaabay mandate bay leeyihiin scope shaqo leeyihiin todobada xubnood dhamaantood dad sumcad fiican ku dhaxlay Soomaaliland oo dhamaantood wasiir soo noqday iyo speaker baarlamaan waa dadkii ugu mudnaay ka shaqeyn lahaa maxaan ku raahday nabadda ka shaqeyn lahaa wala council ama gole maxaan ku raahday gole nabadeed oo heer qaran ah golaha guurtida iyo guddida nabadda qaranka maxaa ka dhaxayn kara wada shaqeyn baa ka dhaxayn karta laba hay'adood oo isbaaxsanayo tartamaya maaha golaha guurtida waxa weeye waa gole dastuuri ama gole xeer dejineed shaqadiisuna waxay ku caddahay dastuurkay ku caddahay haday noqoto arrimaha xeer dejinta gaar ahaan xeerarka la xiriira xagga nabadda ama nabadgelyada dhaqanka iyo diinta inay xuriyaan iyo
inay xukuumadda iyo qarankaba ka kaalmeeyaan arrimaha colaadaha beelaha iyo xalinta khilaafaadka beelaha dhexdooda inay xaliyaan guddidana waa guddi iyadoo aan xeer dejin ahayn waa guddi fulineed oo xukuumadda hoos timaada oo madaxweynuhu magacaabay oo shaqadoodu tahay arrimihii nabadda madaxweynuhu u dirtay inay ka gacan siiyaan khibradooda aqoontooda iyo wixii kale maadaama xukuumadda business fara badan uu yaallo priority ugu weyn uu biiska iyo nabadgelyada yahay xalinta khilaafaadka waddanka dhexdiisa in guddidana iyadu si gaar ah ay uga shaqeyso golayaashu u yeeran karaan guddidana waa dastuuriyaaba u leeyihiin maadaama ay noqotay guddi heer qaran ah su'aalo weydiin karaan shaqooyinka hayaan bay wax ay ka wareysan karaan maxaan ku dhahay way kala xisaabtami karaan xog iyo warbixin bay golayaasha la wadaagi karaan guddidu sida guddiyada kale iyaga dhigooga ay ku aasaasan xeerarka oo madaxweynayaashii kala horeeyay dalkeenu ay sameeyeen marka guddidan iskoobkeedu ka ballaaran yahay arrintaas caalamad arrin keliyana looma xil saarin waxay xil saarin guddi temporary-ana maaha sida ku qoran heerka asaaska madaxweynaha waa guddi heer qaran ah jiritaan qaanuuniya leh rajaynayana inay jirto intii qarankeenu uu jiro oo nabadii Soomaaliland laga shaqeyn jiray odayaasha dhaqanka ka shaqeyn jiray bal institutionalize gareeyay oo loo institutionalize gareeyay maadaama khilaafaadka daaqa iyo sidoo kale khilaafaadka ugu badan ee Soomaaliland ka dhaca ay yihiin khilaafaadka siyaasiga ah ee sababta doorashada inaan kolba cid isxilqaamin aan gelin laakiin guddidan ay ka shaqeyn karto iyada guddi hoosaadii leeyihiin sidoo xeerarsadka ugu qorayo way kala qaybsan shaqooyin kala duwan bay maxaan ku dhahdaa ay leeyihiin qabtaan marka waa guddi dastuurkana waafaqsan golayaashana shaqadoodii maxaan ku dhahdaa ay ku xadgudbaynin wasaarad kalena shaqadeedii aan qaadan oo fallaabin mandate ama conflict ay wasaarad ama hay'ad kale iyo guddida maanta ka dhaxeeya sharciyan ma jirto waana guddi xeer madaxweyne lagu aasaasay madaxweynuhuna awood buu leeyahay inuu guddi ama wakaalad ama hay'ad uu sameeyo oo awoodda dastuuriga madaxweynuhu leeyahay maxaan ku dhahdaa ay ka mid tahay sida ogeed madar reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa guddidana waa xubno sumcad wanaagsan Soomaaliland dhexdeeda ku leeyahay shaqada hayaan oo baahi weyn u qarankeenu u qaba in la shaqeeyo la soo dhaweeyo cilmi baadhisaha iyo aqoonyahanku ay caawiyaan oo ay ka kaalmeeyaan arrimaha wanaagsan ay gacanta ku hayaan aad iyo aad baad mahadsantihiin